Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda abaaraha dalka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka qayb galayay kulan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda abaaraha dalka ka jirta. Wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu soo hadal qaaday oo isu barbardhigna uu ku sameeyay abaarta hadda dalka ka jirta iyo abaartii dabadheer, isagoona ku tilmaamay tan in ay tahay mid aad u daran oo dadka iyo dunyaduba ay saameyn ku yeelatay. Wuxuuna ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumaddaba in si isku mid ah ay u wada midoobaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen xaaladdan abaarta ah ee dalka ka jirta. warbixinta guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu la daalaa dhacayaa abaartii ugu darnayd ee soo marta 40 sanadood ee la soo dhaafay. abaartii dabadheer la dhihi jiray midaan baa ku xigta. abaartaas marka waad ogtihiin gurmadka la fidiyay midowgii Sofiyeeti oo markaas xooganaa oo dowladda Soomaaliya xiriir fiican la lahaa, diyaaradihiisii in dad badan lagu soo daadgureeyay gobolada oo lagu geeyay koonfurta iyo meelihii wabiga u dhawaa. dad badan ay ku badbaadeen arrintaas gurmadkaas waagaas la fidiyay. marka abaartani waxay ka baaxad weyn tahay tii 2011 iyo tii 2016 kadib markii ay baaqdeen 4 xilli roobaad oo xiriir ah ayaa sabab u ah. sababta koowaad, musiibada abaartan oo aan horey loo arag ayaa saameysay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah, iyadoo ku dhawaad 45% bulshada Soomaaliyeed ay soo food saartay cunto yari aad u daran, lana qiyaasayo in 17 gobol ay macluul soo waajihi doonto bisha September 2022 haddii aysan dalka ka di'in roobabka dayrtu ee soo socda oo la rajeynayo bisha October iyo November. gobolka Banaadir baa ilaa xad oo asaguna ma aragtay aan xoolo iyo wax badan ku tiirsanayn ayaa ka badbaaday, laakiin isaga naftirkiisa waxaa laga yaabaa in dadkaas ay ku soo jabaan markay abaartu ay hadday sii xoogaysato. abaarta dalka ka taagan waxay saameyn taban ku yeelatay nolosha dadka, duuniyada iyo wax soo saarka, oo dadkii beeraha iyo kulli ka shaqayn jiray oo dhan markii abaartu dhacday deegaamadoodii waa ka barakaceen. waxayna ku soo aaday xilli dalka ay ka jirto sicir barar baan, adduunkiina dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya uu saameeyay sicir barar badanna dalkeena hadeertaan dadkii ay la daala dhacayaan, taasoo waajib ka dhigaysa in gurmad qaran oo bini'aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka tabaalaysan. haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta markuu arkay xaaladda degdegta ah ee bini'aadamnimo ee dalka ku jiro, markuu qiimeeyay baahida loo qabo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladdaas, markuu tixgeliyay waajibaadka shaqo iyo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday, markuu la tashaday madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda, markuu arkay dastuurka qodobkiisa 99F iyo sharciga hay'adda Sodma qodobka 1 faqradiisa 6, wuxuu golaha wasiirada sharafta leh u soo gudbinayaa lana wadaagayaa baahida loo qabo dib u howlgelinta hay'adda maareynta musiibooyinka Somali Disaster Management Agency Sodma si dadweynaha Soomaaliyeed looga badbaadiyo musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay geystaan aadmuhu, loogana jawaabo xaaladda abaaraha ee daran ee hadda taagan.